wixii la sheegi lahaa gudoomiyaha Olympic daaro u sheegay waxa ay kaydsamaa oo kaliya waxay ahayd in horumarka laga gaaro isboortiga degmada khaasatan kubadda cagta oo hormuud u yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Aways Kabila aad ayuu ugu mahadsan yahay tartamada isdaba joogga ah oo degmada ka wado heer oo gaarsiiyay Serie A, Serie B, Serie C ilaa hadda uu ku wado tartamada iskoolaadka kooxihii xaafadaha afarta xaafadood haddana uu gaaray in beelihii degmada oo maartay u qabta tartamo isboorti waa horumar la gaaray xilligan anaga ciyaari jirnayna waxaan ma jiri jirin oo waxay ahayd 8 kooxood oo kaliya in ka dhisay degmada marka ma hadaas waxa iskala ilaaha ma hadale iyo bulshada isboortiga oo fahamtay isdhaxgalka isboortiga iyo wada shaqeynta maamulka oo isku xiran saas lagu helay ma la heli lahaynba degmooyinka kale waxa u maleeynaa inaga masayri doonaan waxaanoo kale samaysan doonaan waxaas ma hadaas kale xiriirka kubadda cagta degmada Balcad waxaan dardaaran u jeedinayaa xiriirka kubadda cagta degmada Balcad waayo marka tartan la qabto waxaan arki jirnay ciyaaraha gobolada markaan u ciyaari jirnay in laga qaadan jiray kooxaha ciyaartooy naqda Serie A marka waxaan ku waarinayaa xiriirka kubadda cagta inaysan keensanin degmooyinka Xamar iyo meelo kale oo laga keenin ciyaartooy oo laga keeno oo kaliya degmada Balcad sino بعد السلام waxaan aad ugu faraxsanahay inuu noo bilaaban doono mar dhow tartan qurux badan kooxaha heerka koowaad ee degmada Balcad xafladan waa xafladii qorituurka oo lagu asteynayay gruubyada iyo sida ciyaaraha ay noqonayaan markuu tartan imaanayaan waxa meesha imaanaya waxay tahay wax la yiraahdo mas'uuliyad oo ugu horeyso xagga amniga iyo badqabka dhamaan inta garoonka soo xaadirayso mas'uuliyadda waxay ka bilaabanaysaa maamulka degmada waxay ku xogsanaysaa maamulka isboortiga oo kubadda cagta degmada sidoo kale mas'uuliyadda waxa qayb ka ah mas'uuliyiinta kooxaha kubadda cagta ee ka qayb galay sidoo kale mas'uuliyadda waxay sidoo kale saameynaysaa ciyaartooyda qof walba waxa laga rabaa mas'uuliyadiisa inuu ka soo dhalaalo si uu tartan u noqdo mid aad u qurux badan inta badan waxyaalaha caqabadaha badan ee kubadda cagta soo laabto waa xagga garsoorka kubadda cagtana mar walba waxa laf dhawr u ah garsoor haddii garsoor cadaalad la helo wax walba waxay noqonaysaa wax wanaagsan tartamadan waxay noqonayaan kuwa aad u qurux badan ku bilaawdo aad u qurux badan ku soo gabagabo marka ciyaartooyda qaladaad badan ka dhaco inta badan qaladaadkaasna waxay dhibaato ku tahay tartanka ciyaaryahanka waxa laga rabaa marka ugu horeyso inuu noqdo mid good ethics waxa la yiraahdo ama akhlaaq wanaag inuu la yimaado garoonka oo garoonka hadii uu ka soo dhalaalo si qurux badan akhlaaqdiisana uu ku wanaajiyo kooxaha mas'uuliyiintana waxa laga rabaa inay kooxooda dardaaran fiican ay siiyaan shuruucda loo qaybinayo ee u akhriyaan si qoto dheer sharciga mar walba hadaa akhrinin waxay noqonaysaa marka khalad gashid oo lagu ciqaabayo inaad dood badan ka keentid laakiin hadaad akhriso waxay noqonaysaa qaladkaaga adigoo iyo qodobka ku qabanaya adigoo inaad imaanayso miiska wada hadalka laakiin hadaad akhrin weyso way ku saameynaysaa mar walba sharciga in qof walba ama koox walba uu si fiican u akhriyo kooxahan ciyaartooydana loo akhriyo ganaxyada ka imaanayana ee si hoos u fiiriyaan kadibna wixii oo tala ahna ay ka bixinayaan ay kula soo laabtaan xiriirka kubadda cagta mar walbana waxa ku dardaarmaya mar walba in ciyaaraha inuu noqdaan ciyaaro qurux badan qof walbana mas'uuliyadiisana uu ka soo dhalaala rajayna insha Allah ta'ala si uu tartankeena noogu bilaabo si qurux badan ilaa iyo gabagabada noo noqdo mid aad u qurux badan mid ku soo dhamaad insha Allah ta'ala dhamaan ka soo qayb galayaasha mar kale waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta isboortiga degmada Balcad gudoomiyaha Aways Kabila guddiga Olombikada dhammaan kooxaha ka soo qayb galay Serie A
deegaanada dhammaan marka sharafka ku xidhan ku salaamaya salaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaam kadib aada u faraxsanaa maanta madashaan oo kale inaan ka hadlo anigoo ah macalinka Kenya ahna kusoo guulaystay heerka labaad ee tartanka serbida. waan ku faraxsanahay kelmadaan quruxda badan in la heshiiyo. waxaan sameynay dadaal aad u fara badan si aan u xanaanaan koonkaas. haddana alxamdulilah waxay inoo gashay inaan kasoo qeyb galno heerka koowaad sareeda. mahadaas waxaa iskale allah subxaana wa tacaala iyo ciyaartooyda dadaalka sameysay iyo guddiga Kenya. haddana waxaa diyaarsanahay inaan si qurux badan ugu qeyb galno tartankan maanta qorituurkiisa la sameyn doono. waxaan rajeynayaa guul qurux badan inaan galno, tartan fiican inaan soo bandhigno. kooxaha aan tartamaynana waxaa fiican inay si cadaalad iyo nidaam ku tartamaan, in loo hoggaansamo shuruucda ay nala sheegi doono maanta. waxaan rajeynayaa insha allah sanadkan kooxdana inay meel fiican tiigsan doonto. waxaan ugu mahadcelinayaa mar waliba xiriirka sportiska oo ugu horeeya gudoomiyaha Aweys Cali Daahir Kabiila. waxaan leenahay shaqada aawada halkeeda kasii daba jibaar dadaalkaada insha allah. waxaan rajeynayaa inuu meesha sare ku gaarsiiyo siyaasad ahaan iyo meel walba oo aad rajeynayso. anigana waxaan leenahay kooxaha dhammaan shuruucda iyo nidaamka aan u hoggaansano. كلمتين تصل سكوريا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهران الله سبحانه وتعالى يا مهندس كله الله سو إلى قد قدرت المسلمين عندنا نسيي مسكح عفمات قبط يجر عفمات قبو أنت هسكتب وحن أوريها كاك السلام يا قسمها قدوميها كلها الديجان كأهل قدوم كحين كلها الديجان كم حلوان كلها قدوميها حرير كبض عكته حرير كجسوريالك iyo dhammaan kooxaha ka soo qayb galay heerka koowaad iyo deegaanada iyo gudoomiyaalka xaafadaha. intaas kadib wareen waxa aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan qorituurka ah ee ka dhacdo degmada Balcad mar walba. sidoo kale waxaan halkaan ammaan ugu jeedinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyo howlwadeennadiisa shaqada adag ay u hayaan qalinta degmada iyo sportka degmada horumarka ay ka sameynayaan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta mudane Aweys Kabiila oo ii ogolaaday inaan halkaan kelmad ka jeediyo. sidoo kale waxaan kula dardaarmaa kooxaha degmada iyo gudoomiyaalka kooxaha inay tartanka ka dhigaan mid aad u qurux badan oo soo jiidasho leh, maadaama sportska degmada Balcad uusan ahayn meeshii hore oo uu ka tagay meel fiican oo gaaray. marwayna hadalka ku sii dheeraado. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala ugu horeen oo noo suurageliyey inaan halkaan dhammaantiin anagoo caafimaad qabna aan isugu imaano. intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada Balcad ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Balcad Axmed Maxamed Awadaad. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta oo ugu horeeya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Aweys Cali Daahir Kabiila. anigoo ku hadlayo afka deegaanada waxaan saaxiibaday halkan kula dardaarmayaa. horta anaga deegaanada ahaan haddaan nahay kulankan uu inoogu duwan yahay dhammaan kooxahaas heereeda siduu u yahay anaga uu inoogu duwan yahay maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu horeeyey la qabto tartan deegaano. tiimka saaxiibaday ah waxaan ula dardaarmayaa in tartankaas aan laga dhigan mid aan la xiiseyn oo laga dhigo mid la xiiseeyo. sababtoo ah tartankaas haddaan ilaalino quruxdiisa iyo kala dambeyntiisa sanad walba wuxuu noqonayaa tartan xiiso leh. marka waxaan leeyahay gudoomiyaasha deegaanada aan ilaalino dhammaan nidaamyada xiriir u dhegsan. sidoo kale aan ilaalino aan xakameyno ciyaartooyda matalay doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo. deegaan walba waxaan u rajeynayaa guul iyo horumar. waana mahadsantihiin dhammaan soo qaybgalayaasha u mahadcelinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waxaan salaamayaa guddiga sportska, waxaan salaamayaa golaha deegaanka, waxaan salaamayaa macallimiinta, waxaan salaamayaa kabtanada, waxaan salaamayaa bahda sportska. awalan waxaan idin leeyahay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa la qabanayaa tartan sportiska wuu dhib badan yahay. maadaama uu dhib badan yahay samir badan ay u baahan tahay. samirku waxaa kowka inuu qofka xakameyn karo
waxa uu khiirada uu ku qaadaa ma fahanti marka waxaan leeyahay ilaahay wuxuu yiri yaa cibaadii inni xaramtu ad-dulma ala nafsi wa ja'altuhu baynahum muharram fala tadalimu dulmiga nafsadiisa ilaahay wuxuu uga xaramay in ummadiisa isla dulminin cadaalad waxa ay kaga filan wal casri cadaalad ay kaga filan sababtoo ah cadaalad waxa lagu fali karaa wal casri qofka waxa inuu ka qaato rabo wal casrikaas inuu qaat marka waxaan leeyahay sportsku waa dib badan yahay cadaaladda waxay timaadaa markii qofka wax fiican la yimaado qofka ma aan dadka waxa jira MK Ultra waxa jira dagaalka labaad adduunka markuu dhacay qofka maskaxdiisa in la maamulo qof dhan oo nool inuu maskaxdiisa qof kale maamulo waa laga fiican yahay waxaan rabaa qofka inuu nafsadiisa as maamulo si fiican u maamulo wax fiican ka sameeyo sportska si fiican u dhaqaaqo waxaan leenahay qof hadda ka hor igu maamaayo wuxuu ugu dhaaniyo sportska balcad buundada ma dhaafo buundada inuu dhaafo wuxuu marwaan Serie A in la qaato oo ilaa dibadda loo qaato haddana si ka fiican la joogaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sportska si fiican u socdaa khayr aan rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horeen gudoomiyaha arrimaha bulshada ahna qusimaha degmada balcad gudoomiyaha sportska saaxiibkay Anas Cali Daahir Kabiile xilwaankeyga gudoomiyaha olimbiyada iyo ku-xigeenkiisa iyo gudoomiye ku-xigeenta dhalinyarada dhammaan gudoomiyaasha oo xaafadaha dhalinyarada gudoomiyaasha xaafadaha sportska gudoomiyaasha kooxaha macallimiinta kooxaha waxaan idinku salaamay salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta waa maalin aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maxaa yeelay tartan walba midoo ku sii xiis badan yahay marka tartankan waxaan sugaynay muddo badan tartanka Serie A sanadkan waxa u maleysaa sanadihii hore inuu ka xiis badan yahay maxaa yeelay isqabsigiisa sidoo degmada loo sheekeynayo iyo qaabka uu dhacayo arkeenayo insha Allah waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay tartankan oo Serie A sanadkan inay Serie B ay ku soo biireen ee wax badan ay ka bedeli doonaan oo dhalinyaro ay yihiin maxaa yeelay sanadihii hore waxa dhici jirtay in deegaanada uu ciyaaro mise in koox Serie A oo xamar inay ka yimaadaan laakiin sanadkan waxa si toos ah u qaatay degmada balcad dhalinyarteeda oo Serie B qaar waxa arkaysaa oo Serie C inay imaadeen Serie A taasna waa farxad oo sportska horumar u ah waxaan kala mahadcelinaynaa maamulka degmada balcad oo tartankan deegaanada oo soo qaban qaabay waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin waan idinku sugaynaa tartamo kale oo dhalinyarada u gaar ah oo gudoomiyaha oo inuu asigana maamulka inuu noo keeno insha Allah waan idin salaamaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير وحالك السلامة ودموعية كذوات شيخ داودات ودمية حيل ودعك تكمل بالعب عويس كبيرة قلت البوء هل كان فالبيو أنا كان قادم مع السلامة مصر إيسي مقابل هل وجوده ما أنت والمالوين سبورتس كدقمة المالوين وفرحة sababtoo ah waxa halkan ka dhacay qortoonkii kooxihii ka tirsanaa degmada iyadoo maantana ku sii jiraan deegaanadii hoos yimaanaya degmada waa maalin weyn oo sportska oo degmada horumar u ah taasna sababteeda waxaa lahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Anas Kabiile wixii hadal ah horta wala shay aan soo ku ay inta soo ku inaan masantiin maantiin